kulanti wacan daawadalkuna soo dhawaada warka warbaahinta ogaal qodobada wararka maanta aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey shirka dhuusamareeb iyo weliba sidoo kale madaxdii ugu dambeysay oo gaartay israsaaseyn ka dhacday xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Laba askari oo Kenyan ah oo la toogtay taliyaha ciidanka dhulka weerar culus ku qaaday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyey arrimaha shirka Soomaaliya ee daawadal wararkeena ku soo qaadan doona inta badan. haddii aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa si weyn daawadeel uga socday diyaargarowga furitaanka shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada gobolka banaadir. waxaa maanta magaaladaasi gaaray wufuuddii ugu dambeysay oo ahayd gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Finish, madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo uu madaxweyne Saciid Dani ku soo galay socdaal dhanka dhulka, iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo isagana si diiran loogu soo dhaweeyay. sida ay ogaatay warbaahinta ogaal media waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu shirka si rasmi ah u furmo, waxaana magaalada ku sugan madaxweyne farmaajo, wasaaraha madaxda Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo weliba oo shirka martigelinaysa. sidoo kalena waxaa kusoo wajahan magaaladaasi dhuusamareeb sida la sheegay madax kale, iyadoona shirka laga dhowrsugi doono waxyaabaha kasoo bixi doono. waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada dhuusamareeb iyadoo wadooyinka muhiimka iyo xaafadaha qaarna lagu daadiyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo wada shaqeynaya xaqiijinta amniga ee shirka. sidoo qorshe uu yahayna waxaa shirkan xalkama dambeesa looga gaaraya xaaladda dalka iyo doorashooyinka, gaar ahaana tabashada ay qabaan madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagoo horey u qaadacay hannaanka doorashada balse kusoo dabcay waawaanta beesha caalamka ee dhex waday. waxaana isha lagu wadayaa natiijada kasoo bixi doonta shirka dhuusamareeb maadaama khilaafka doorashada xiisad cakiran ka abuuray dalka xilli maamul ka tirsan ay ka harsan yihiin maalmo tirsan ay ka harsan yihiin adhehe muddaxileedka madaxweynaha dalka mudane Cabdullaahi Farmaajo oo ah 8 Febraayo, iyadoona sidoo kale shirkan aysan ka qayb gelin sida wada ognayba qaar ka mid inta badan baa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada iyo weliba sidoo kale midowga musharaxiinta iyagu sheegay in ay habooneed inay shirkan ka qayb galaan. waxaa wararka sida xogtan inuu daawadayaal aan ogaanay in shirkani uu loo diiday ama inuu kasoo qaybgalo loo diiday gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo la sheegayo in uusan wax casuumaad ah kelin maamulka Jubbaland maamulka dhexe galmudug oo shirka martigelinaysa, iyadoo uu shalay Cabdi Xaashi gudoomiyaha uu diray waraaq maamulka madaxweynaha maamulkaasi galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu ka codsaday inuu shirka kasoo qaybgalo isla markaasna uu la socdo, balse aysan dhicin maanta inuu gaaro magaaladaasi gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isaga xiisad adag ka dhex taagan tahay villa Soomaaliya. dhanka kalena sida wararka daawadal aanu ka helaynin waxaa israsaaseyn ka dhacday oo laba askari oo Kenyan lagu toogtay xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ayaana warbaahinta dalkaasi u sheegay laba askari oo ka tirsan kuwa xuduudaha ilaaliya Kenya lagu dhaawacay xadka Soomaaliya ee dhanka beled xaabo, waxayna ku eedeeyeen toogashada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. wargeyska The Star ayaa qoray in ciidamadan la toogtay iyaga oo ilaalinaya xuduudaha, sida wargeyska ka soo xigtay saraakiil Kenyan. ciidamadan ayaana xadka ka qabtay laba gabar oo Soomaaliya oo doonayay inay u soo gudbaan dhanka Kenya. intaas kadib ayaa waxaa iyaga oo su'aalo weydiinaya soo dhexgalay ciidamada Soomaaliya oo dalbaday inay gabdhaha sii daayaan. sida warbaahinta lagu sheegay waxaa kadib xigay muran taasi oo keentay in ciidamada Soomaalida ay rasaas soo furaan kadibna dhaawacaan laba askari sida lagu yiri qoraalka. sida ay sheegeen saraakiisha Kenyaanka in labada askari oo laga dhaawacay waxaa hadda lagu daaweynaya isbitaalka Mandera Referral Hospital oo yaqaano. darawal taksiilayaasha oo goobta la sheegay oo ku sugnaa oo la hadlay warbaahinta ayaa dhanka kale sheegay in ganacsadaha iyo booliiska murmeen ka hor intaysan xabadda bilaabanin. qofkan oo magaciisa la qariyay sababa ammaan darteed wuxuu sheegay in uusan xaqiijin karin cidda risday xabadaha, balse ay ka imaanayeen buu yiri dhanka ay ciidamada Soomaaliya ka joogeen xadka labada dal. saraakiisha Kenyaanka ee wargeyska The Star la hadlaya sheegay in ciidankooda amreen inay ka jawaabaan dhacdadan ama aysan argudan si aysan xiisadda uga sii daraan, siiba waa la yiri warbixinta lagu sheegay. ma jirto cid xaqiijin karta sheegashada Kenyaanka, sidoo kalena ciidamada xoogga dalka weli kama aysan hadlin dhacdadan oo ay dhacday shalay. dhacdadan ayaana imaanaysa iyadoo ay xiisadii xoogan ka dhex xoogantahay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, taasoo salka ku haysa ciidamada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ee Kenya ku hayso gudaha Mandera. dhanka kalena taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Janaan Maxamed Taliil Bayxi oo kormeer ku tagay fariisimada ciidanka xoogga ay ku leeyihiin duleedka beled xaabo, halkaas oo toddobaadkii hore dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Taliil Bayxi ayaana sheegay in duleedka beled xaabo ay isku aruursanayaan maleeshiyaad uu sheegay in dowladda Kenya ay gadaal ka riixayso, kuwaas oo raba inay carqaladeeyaan amniga ka jiro gobolka sida hadal ku dhigay. Janaalkan ayaana eedamo culus u jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo sheegay inuu dana siyaasadeed oo uu xukunka ku dheeraysanayo kaliya warbixinta ay guddiga xaqiiqa raadinta IGAD ka soo saareen xiisadda ka dhex xaluusan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. waxa uuna
sidoo kalena waxa uu carabka ku adkeeyey in natiijada warbixinta guddiga xaqiiq raadinta ee IGAD soo saartay xiisadda labada dal ay qaybo ka noqdeen shirqoolkii iyo xildheeraysiga madaxweyne Geele sida uu isaga hadal ku dhigay. Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhawaan digeeda Djibouti u eedeysay eedeynta lamid ah taas oo ay ku sheegtay inay la safatay dowladda Kenya maadaama guddigaasi xaqiiq raadinta ah ee loo diray xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo badankoodu ay kasoo jeedaan bariga gudaha Djibouti. guddigaas ayaa waxaa loo iclaamiyey shirki 20 bishii December ee IGAD ku yeesheen dalka Djibouti waxayna dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay warbixintooda mid la yaabo isla markaasna sheegtay inaysan dhexdhexaad ahayn ay soo saareen warbixin hal dhinac oo kaliya. xubnaha guddiga loo diray xuduudaha oo 7 qof 6 ka mid ah ay Djibouti ka socdaan waxaana arrintu ay keentay in xiisad ka dhex abuurto sida dalalka Soomaaliya iyo Kenya sida warbixintan ku helino. inkastoo madaxweynaha dalka Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ama Villa Soomaaliya si toos aysan uga hadlin xiisadda arrintaasi, haddana waxaa la sheegayaa qaabka ugu hadlay wasiirka warfaafinta ee dowladda Cusmaan Dube ee noqon karta in ay Djibouti arrintaasi ay ka xanaaqdo. waxa ayaan darro ah maanta waxa cad oo meeshan ka muuqda oo ciidankii halkaa ka soo gudbay waxa siligaa ka soo gudbay halkaa ka soo gudbay kastamka ka soo gudbay oo madaafiicdu kastamka ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xerada militariga ee Kenya uu ku dhex jiro in dawladda Djibouti ama Ismaaciil Cumar Geelle uu yiraahdo mataqaanaa Soomaaliya gardar inuu yiraahdo waa ayaan darro. waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa shacabka reer Djibouti waa walaalihiin raalli kama ay ahaan waxa lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle ee uu ku dheerarsanayo xukunkiisa. isagama qasaarinayno hub iyo rasaasna kuwa ay wataan ba waxa ayaan darro ah maanta waxa cad oo meeshan ka muuqda oo ciidankii halkaa ka soo gudbay waxa siligaa ka soo gudbay halkaa ka soo gudbay kastamka ka soo gudbay oo madaafiicdu kastamka ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xerada militariga ee Kenya uu ku dhex jiro in dawladda Djibouti ama Ismaaciil Cumar Geelle uu yiraahdo mataqaanaa Soomaaliya gardar inuu yiraahdo waa ayaan darro. waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa shacabka reer Djibouti waa walaalihiin raalli kama ay ahaan waxa lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle ee uu ku dheerarsanayo xukunkiisa. isagama qasaarinayno hub iyo rasaasna kuwa ay wataan ba